Asalaamu calaykum asxaabta isu laabasho wanaagsan halkan waxaanu ku sharxaynaa cashir loo yaqaano fried cost ama landed cost marka fried cost ama landed cost waxaa loo yaqaanaa additional costeska loogu galo yani markii purchase la sameynayo productiga yani haddii ahaan lahayd shipping haddii ahaan lahayd custom duty haddii ahaan lahayd clearance charge haddii ahaan lahayd transportation yani kharashaadka la galo markii alaab lasoo gadanayo so waxaana laga configure gareeyaa inventory appka yani waxaa laga maamulaa ama laga sameeyaa inventory appka laga sameeyaa so si configuration landed cost loo sameeyo waxaa la maraa 4 step aa la mari doonaa afarta step ugu horeeya wuxuu noqon doonaa inaad soo activate gareysid landed cost inaad jegta soo saartid inuu landed cost yani yeesho yani odhugaada so waxaa tagay inventory app aa tagay waxaa tagay configuration waxaa ku dhufanay setting waxaa soo activate gareynay landed cost featureskiisa yani waxyaabaha uu yeelan doono so ogowna landed costiga waxaa lagu apply gareeyaa product automated inventory valuation leh vivo ama av average cost haddiisan uusan ku ahayn productigaada vivo ama average cost yani landed costiga laguma diri doono productigaada so saa ugu soo dirtid product vivo ama average cost saa uga soo dhigtid waxaa tagay product category aa tagay stepka labaad waxaa si product category aa u tagtid waxaa tagay inventory app then waxaa tagay configuration product category aa dooranay marka aniga hadda waxaa ii samaysan product category loo yaqaano allkaas aa tagay settingkiisa waxaa kasoo dhigay vivo ama average cost waxaa ku qoran meesha standard pricekaas haddii uu ku yahay lagama jari doono landed cost laguma diri doono productiga stepka saddexaad waxaa waaya receive productigaada yani alaabtii inaa heshid si tusaale ahaan waxaa tagaynaa purchase applicationka purchase orderska tagaynaa rfq aa dooranayna oo ah request for quotation aa tagaynaa oo si fudud ina yani purchase ku sameyna then funderkaa dooranayna product name price saasaa ku sameynayna then markaa productiga helno waxaa sameynaynaa landed cost saa u sameyno waxaa tagaynaa inventory app operations aa ku dhufanayna landed costiga aa qiimeynaynaa inta yani alaabta aa soo gadnay intii qarash oo galay tusaale ahaan waxaan kasoo gadanay company 20 xabo keyboard halkii xabo waxaa waaye $15 iyo 50 xabo wireless mouse oo u dhigma halkii xabo $3 marka isku dar $150 aa kasoo bixin alaabtaas waxaana galay fried cost gaaraya $15 oo ah shippingkii iyo custom tax canshuurtii laga qaaday oo $5 ahayd iyo others oo $3 oo delivery waxaas marka isku dardar landed costiga aa galna waa $3 marka qaabkee u xisaabinayna marka aynu aragno marka waxaa imaataa akoonkaadii oo applicationkaadii imo then waxaa tagtaa si yani kod hore waxaa sameynaynaa inaan kusoo darno landed costiga waxaa tagaynaa inventory app then configuration waxaa ku dhufanaynaa setting waxaan rabnaa in landed costiga productigana la xisaabiyo marka hoos soco meeshaan landed cost hadda jegta ku saarantahay landed cost jegta soo saaro so markaa jegta saartid meeshaan kaaga soo muuqan doona operation landed cost halkaasoo kaaga soo muuqan doona so marka waxaa waaye stepka labaadaan maraynaa oo ah product categoryga inaan soo saxno waxaa leenahay configuration categorya tagaynaa marka so intaanu categorya samaysan ani categorya wax ku xisaabiyo kan waaye meeshaas imo meeshaas waxaa ka doorataa average cost uu yahay ama fast in ama labadan ka dhigo standard price haduu ka yahay landed cost lama xisaabin doono iska fiiri meeshan so okay stepka saddexaad waxaa waaye inaan purchase sameyno request for quotation aa imaanaynaa new aa leenahay so waxaa hadda shirkad cusub aa waxaa ka gadaynaa shirkaddan loo yaqaano dawaa electronics so waxaa ka gadaynaa keyboard so waxaan leedahay nooma jiro keyboard create an edit deh so keyboardkaana ka gadaynaa waxaa leenahay track inventory quantity on hand ma jiro sell pricekiisu waa $15 no cost priceka $15 marka sell pricekiisu wuxuu noqon doonaa $25
so barcode category ka tirsan yahan waxaa dhihi doontaa all. So intaan way noo saxan tahay, point of sale-na ku dar meeshan inuu kasoo muuqdo save aa leenahay. Okay, waxaa kasoo gadeynaa 15 xabo 15 xabo I think inay ahayd, mise waxay ahayd kan kalena wuxuu ahay mouse wireless. Mouse wireless. So create an edit there. Mouseka asaka hoosta pricekiisu waa $3. Sell pricekiina siino waa $5. Point of sale-na ku dar. Drag inventory dheh. Quantity of hand ma jiro. Okay, waxaad gacanta ku hayna ma jirto. Okay, save dheh. Save dheh. 20 xabo oo mouse ah iyo I think inuu ahayd waa qaladnay, kan 20 xabo waaye. Waxaan ka rabnaa $150. Kanna 50 xabo waaye. So kan 150 waaye, kanna 300 waaye. Isku dar 400 waaye. So waxaan leenahay confirm order, receive, validate. So bilka aan dalacno waxaan leenahay inta tag. Waxaa tagtaa orders, purchase order. Kanaa waiting bill ah ku dhufo. Waxaa dhahdaa create bill. So waxaad doorataa date dooro. So waxaa leenahay confirm. Lacagta ma bixinin. Meeshaan waxaa ogaataa marka waxaa iloobay inaad kan copy garaysatid. Waxaa lagaa rabaa bilka kowdhe iyo alaabta kaa ku gadatay kan phone numberkan warehouse inka iyo bilka labadaas copy garayso. Kan noo copy garay iyo kan labadan noo copy garay. So hadda waxaad dalacaynaa landed cost. Waxaad leenahay inventory tag, operation tag, waxaad tagtaa landed cost. waxaa leenahay new. Meeshan waxaa gelinaynaa warehouse inkii hadeertan aan soo copy garaynayno. Waa kana warehouse in kan waa 10aad kaasaa gelinay meeshaas. Meeshaan waxaa gelinay vendor bilkii oo u dambeeyay kanuu ahay kaasaa gelinay. Marka wuu garanaa marka landed cost landed cost. Meeshaan waxaa ku qortaa landed cost, description landed cost, meesha laga jaraayo akoonka laga jaraayo meesha geli. Marka meeshaan waa marka la xisaabayo inta waxaa gelinaynaa landed costiga aan galnay waxaa waaye $23. Marka qaabka loo xisaabayo haddii aad dhahdid by equal u xisaabi, wuxuu xisaabin doonaa si isku mid ah oo uga jari doonaa macnaa lacagtii ugu dari doonaa. Waxaad tagtaa value adjustment. 20 xabo oo halkii xabo $15 uu yahay oo 300 ah waxaa ku darsoomi doonta $11 iyo bar. Kan waxaa ku darsoomi doonta $11 iyo bar. Marka kanaa qiimo badan, kanaa qiimihiisa uu yahay 50 xabo, kana 20 xabo uu yahay. Marka equal si isku mid ah loogu dari doonaa expensive. Haddii kala badan yihiin waxaa yani isticmaalaynaa by quantity. waa loo fiirin karaa kan tirada badan oo wuxuu ku dari doonaa lacagta ugu badan. kan waxaa lagu daray $6. kan waxaa lagu daray $16. waxaa ugu fiican by current cost, qiimaha hadda ay joogaan. waxaa leedahay value adjustment jida. kan $5 oo ahaa $3 lagu soo baxshay, $5 la gadayaa. qiimaha lagu daro waxaa waa $7. kan waxaa lagu daray $15.33. marka kulli yani qaabka oo methodka loogu qaybinayo intaa ka baran doontaa by weight. haddii yani kala weight weyn yihiin, haddii volumeka shayga uu yahay, haddii equal ay yihiin, haddii isku qiimo yihiin, haddii quantity kan badan tirada la saarayo, haddii current costiga qiimaha kan $15 lacag badana la saaraa, kan $5 lacag yaraa la saaraa.
marka waxaan leenahay validate. aan soo fiirina marka operation, waxaad tagtaa productska tag, waxaad tagtaa productska, hadda keyboardka fiiri, keyboardka cost pricekiisu wuxuu ahaa awal $15, laakiin hadda waxaa la socdo $15 iyo sentiyaal. waxaa ka tagtaa muuska tag, muuskaasna wuxuu ahaa $3 iyo meeqaa la socoto sentiyaal. marka qaabka u xisaabshaa waxay tahay fried costigana gale wuxuu ahaa $23. marka $23 haddii la dhaho by additional by current cost, haddii loo fiiriyo qiimaha hadda ay yihiin, boqolkiiba waxaa kasoo aadayo muuska, waxaa kaga soo aadayo boqolkiiba our value, muuska waxaa kaga soo aadayo maadaama uu yaryahay costiga muuska, maadaama uu yaryahay waxaa kaga soo aadayo boqolkiiba, waxaa kaga soo aadaysa boqolkiiba adiga $33. marka waxay isku noqonaya $7 camal aa kusoo aadayso, halka keyboardka ay kusoo aadayso boqolkiiba 60, I think 65 meelahaas, boqolkiiba adi 67 meelahaas kusoo aadayso. marka kii qiimo badanaa waxa uu qaadan doonaa costiga inta ugu badan, kii qiimo yarna wuxuu qaadan doonaa costiga inta ugu yar. haddii aa u xisaabinaysid by equalna waxay qaadan doonaan isku qiimo, waxaa loo qaybin doonaa kana laba loo qaybin doonaa $11 bar $11 bar lagu kala dari doonaa. marka qaabkaas aa loo xisaabiyaa landed cost oo productigaada uu galay, landed costiga productigaada uu galay.